kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddaad nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. hantida ugu weyn ee koonka dadka la siiyay markii wax la wadaagayo waa ubadka. Allah inoo xifdiyo kuwa aan weli ubad dhalinna Allah ku arsaaqo kuwa qeyr qaba ayaanu leenahay. niyad wanaaga qeyrka waad u dhawaato alla ka cabsiga intaba waa wadiiqo kuu sahli karta kuuna horseeda hodantinimo adduun iyo midda aakhirada aan dhamaadka lahayn. waxaa jira kuwa badan oo diinta islaamka haysan balse insaaniyadda iyo ficilada wanaagsan sameeya si bini'aadanimada ku jirta awgeedna u isticmaalaya wanaaggaasi. falcelin badan ayaa ka timid sawir lagu faafiyay baraha internetka taasoo ahayd macallin jaamacadeed uu kala wareegay cunug ay dhashay haweeney fasalka dhigata. macallinka ayaa dhigay maadooyinka jaamacadeed ee heerka labaad ee masterka loo yaqaano. cunuga oo ahaa wiil ayaa ooyay iyadoo xiisadda ay socotay. waxa uu macallinkii go'aan ku gaaray in uu cunugaas soo qaado oo uu xambaaro si aanay hooyadiis uga mashquulin fahanka casharka ay qaadanaysay. sawirka la faafiyay ayaa la arkayay iyadoo macallinkii uu xambaarsan yahay cunuga oo gam'ay ama hurday isaga oo dhanka dhabarka ku siday. raganimada runta ah waa caawinta haweenka xaaska ah xitaa haddii aysan adiga kuu dhixin ama xaaskaaga ahayn u naxariisatid garabka ay kaaga baahan tahana aad u buuxisid. way jiraan Soomaali badan oo isku diirnaxa halka ay badan yihiin kuwa badan oo aan saaciideynta hablaha iska daayay dib looga maaran waayay oo naftooda ay ciriiri geliyeen haween badan. daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid lamida isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.